Wararkii caawa iyo ciyaaraha idii haynana waxaa ka mid ah Maxamed Saalax xulkiisa u diray samafinaalka koobka qaaradda Afrika kadib guul soo laabasho ahayd oo ay ka gaadheen waddanka Morocco. Xulka qaranka Masar ayaa u gudbay wareegga samafinaalka koobka qaaradda Afrika kadib markay guul 2-1 ku garaaceen waddanka Morocco oo gool la hormartay. Ciyaartan ayaa socotay 120 daqiiqo ayay Morocco la hormartay goolka daqiiqadii 7aad ee bilowga ciyaarta. Maxamed Saalax ayaa xulkiisa Masar u keenay goolka barbaraha qaybtii labaad ee ciyaarta. Waqtigii caadiga ahaa ciyaarta ayaa ku soo dhammaaday barbaro 1-1 ah waxaana lagu daray 30 daqiiqo oo dheeraad ah. Masar ayaa heshay goolkeeda guusha. Ciyaartan ayaa ahayd ciyaar aad u xiiso badan kaasoo la arkayay iyagoo xataa ciyaartoydu ay dhex marayeen buuq aad u fara badan. Waddanka Morocco ayaa weerar joogta saarayay waddanka Masar kaasoo ciyaarta inta badan dhexda iyo garbaha kaga soconayay. Ciyaartan ayaa ahayd ciyaar xamaasadaysan kaasoo weerar iyo weerar celis ahayd. Maxamed Saalax ayaa haddaba xulkiisa Masar guushan u horseeday isagoo goolna dhaliyay goolna caawiyay. Haddaba Masar ayaa waxay samafinaalka tartanka koobkan la ciyaari doontaa xulka waddanka martigeliyay tartankan ee Cameroon oo shalay 2-0 ku soo garaacday Gambia. Haddaba daawade ma isleedahay Maxamed Saalax wuxuu xulkiisa u horseedi doonaa inuu koobkan ku guuleysto. Ciyaarta Cameroon iyo Masar waxay noqon doontaa ciyaar aad u adag oo la wada sugayo. Ciyaartaas waxay noqon doontaa ciyaar xiiso badan oo dadku aad u daawan doonaan haddii la haydmo. Haddaba kusoo gabagabayn doonaa wararkii ciyaaraha iyo caawa. Salaamullaahi calaykum.